فرس TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyga Soomaalidu degto oo dhayah wararka qayda lista ay hadda la soo lisay aan idin haynana waxaa ka mid ah beesha Yabaree oo boorka la cusiyay wasiir ka mid ah xukuumadda Mustafa Cagshar oo muqaarada ka dhaxsanaysay xafiisyada dawladda ciidamada TPLF oo ku xararaysan magaalada Maqale ee xarunta deegaanka Tigray qodobo kale ayaa raaci doona ka hor fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe star channelkan gambaleelkana furo like share iyo commentigana naga iloobin oo nagala baqayn ku soo dhawaada wararkii u baahsan wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwe Yusuf waayahay walaal dhagahagaysi kamid ah wasiirada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo waramayaa inay qoraal muqaarada ah oo ay ku qayiraan dumarka loogu keeno shiishadana ku cabaan inay ka dhaxsanaysteen xafiisyada ay xukumaan Cabdiraxmaan Ciid Daahir wasiirka xafiiska howlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay inuu samaysashada qolalkan muqaaradaha u hor bilaabay loona dhameystiray qolkii isla markaana uu qalabaystay oo shaqadii saamaleylka liilalowda dhuuqida shiishada kula qayrka dumarka bilaabatay habeen oo dhanna uu xafiisku camiran yahay sidoo kale wasiirka waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida Faatax ayaa hagaajintii qolkaas loo dhameystiray oo ay hadda qalabayntii ku socotaa qolalkan looma samaysanin sida naloo sheegay nasasho iyo in shaqo xafiis lagu qabto midna ee waxaa loo samaysanayaa ku kala tuurka kuwa duloobay ee suuqa galay dhuuqida shiishada saamaleylka iyo waxyaabo la halmaala shaqaalaha xafiisyadan wasiiradoodu ay qolalka muqaarada ah ka dhex furteen ayaa kadib markii ay maqleen arrintan ka cadhooday hoosna isu weydiinaya sababta keentay in xafiiska dhexdiisa laga samaysto qolal muqaarada ah dumarkuna kusoo qulqulayaan habeenkii oo dhanna ay liilalowda iyo shiishadu aad u sud dhaafayso waxayna shaqaaluhu ku tala jiraan inay howlahan fashaliyaan si cadna u soo bandhigaan sida ay xogta haddaba nala soo wadaageen howlahan ayaa ah kuwa soo kordhaya tan iyo inta uu isbedelku ka dhacay deegaanka ay xukuumadda uu Mustafa Cagshar hogaamiyo majaraha u qabatay hogaaminta deegaanka waana mid marba marka ka dambaysa kasii daraysa oo la imanaysa waxyaabo la yaab leh fajac ah oo sharafda iyo dulliga ku ah dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo midka diinta Islaamkaba beesha Yabaree ee Jubbaland waxaa gebi ahaanba laga qadiyay mansuuqii iyo mas'uuliyadii maamulka Jigjiga gobolka Faafan iyo heer deegaan intaba waxaa la diray 10 iyo eber waxaana xaqoodii iyo xuquuqdoodii isku shushubtay bartire iyo abasguul oo dhuli iyo dhadhamada u diiday Yabaree wuxuu markhaati ka yahay shacabkana u tumaa kooxda laga iyo sarartaba isku darsatay oo marka ay alaabtaas shaqayaan ayay farxalka iyo aftirka u keenaan iyagoo aan iyagu luuman oo afka luun ku leh 13 agaasin oo maamulka Jigjiga ah oo ay ka mid yihiin agaasinka xisaabaadka ee maaliyadda agaasinka iibka agaasinka adeega guud agaasinka xalinta dakhliga agaasinka dabagalka dakhliga agaasinka faadka agaasinka wacyigelinta dakhliga agaasinka nadaafadda dhammaantood waxaa ku qoran bartire halka Yabaree maamulka magaalada Jigjiga laga siiyey 3 agaasin oo ah boosas meydnoole ah kuwaas oo kala ah agaasinka shaqaalaha ee dakhliga agaasinka shaqaalaha ee biyaha iyo agaasinka shaqaalaha ee maaliyadda waxaa intaas dheer oo beesha Yabaree lufluf iyo dufan af umaris iyo anqalil lagaga dhigay maamulka gobolka oo madaxafiiseedka maleeshiyada ee gobolka oo kaliya ayaa sid looga dhigay lagana siiyey qaybtii maamulka oo idil halka xafiiska nabadgelyada ee gobolka la siiyey beesha Hawiye arrimaha siyaasadda bursuug xafiiska xuduudaha iyo midka ganacsigana la isugu daray akishe oo ay ka tira badan yihiin heer deegaan isaga mamnuuc bay ka yihiin qaadana loogama darin malaha ganacsadayaal xoog badan looma ogola kantaraasyada waxgaradkooda waa la lidaa oo xataa kama muuqdaan madragyada la isugu yimaado iyo goobaha caanka ah haddaba Yabaree maxay galeen oo galabsadeen oo lagu duudsiyey mise xilligii xukuumaddii hore xiimeen oo sababtaasaa lagu fogeynayaa taas laftirkeeda bartire iyo abasguul baa ka xun badnaa ee Mustafa Cagshar iyo Yabaree yaa u kala warramay oo dabka kala dhex dhigay sidii waaqda la sheego waa bartire iyo abasguul kaliya maxaase la gudboon beesha Yabaree ee xaqoodii iyo xuquuqdoodiiba la duudsiyey
shacabka magaalada Qabdahar ayaa ka cawday garoonka diyaaradaha ee magaalada Qabdahar ee muddada sanadaha iska xiran, sheegayna inay baahi badan u qabaan uusan u xidhnayn shacab yaraan ee ay jirto dan kale oo u xiran yahay. Airportkan Qabdahar waqti horena waa la dhisay, lacag badanna way ku baxday, laakiin wuu iska xiran yahay, wuu iska bannaan yahay. baahi badan bay bulshada u qabtaa. annaga ka mid ah ganacsada ahaan 400 kilomitir baanu dareeb garaynaa markaan rabno inaan aadno markaan aadno Jigjiga kabada sababay iyo Dirdhabe iyo markaan aadayno markaan ma garanaynaba hadda sabab uu xiran yahay. bulshada badan baa halkan joogta, baahiduna wax la soo koobi kara ma aha. inaan magaalada Qabdahar diyaaradda rakaab looga la'ayn, rakaabna aan loo waaynin, ayadoo diyaaraddaas ay tegi jirtay Qabdahar inta la yaqaano taariikhdiisa ay diyaaradda Ethiopian Airlines ilaa Dirdhabe ilaa Addis Ababa isku xidhnaan jirtay. sidaasaan ku naqaanaa iyadoo shay ah oo aan laami lahayn oo aan dhismo guryaha lahayn ayay diyaaraddu Qabdahar fadhiisan jirtay. markii garoonkii laami laga dhigay ee terminaalkii loo dhisay ee intaasoo milyan oo lacaga ay ku baxday ayay Ethiopian Airlines iyagu iskaga tagtay oo ka goosatay. magaaladu jaamacad bay hadda leedahay, waa wadankii shidaalka ee Kaaluub iyo dhulkoo dhan, waa wadan gees ku yaalo wadanka dhulka laga maamuli jiray. ugama maqna ayaa aan qabnaataan odayaasha nahay inay rakaab la-aan uga maqan tahay. baahi badan baa loo qabaa. Addis Ababa la tegi lahaa, dadka dibadda ka imanaya ayaa toos usoo goosan lahaa. xitaa markii hore wuxuu ahaa caalami buu ahaa, markii dambe loo kalbay ka dhigeen. looma baahnayn taa laftigeeda waxaanu ka qabnay cabashaanu ka qabnay. marka looma waayin wax la yidhaahdo rakaab looma waayin. way qaaliyeeyeen, qaali bay ka dhigeen, qaali dhaaf bay ka dhigeen. waxaan codsanaynaa diyaaraddu inay noo timaado, qiimahana la jabiyo, saasaan codsanaynaa. sidoo kale maamulka jaamacadda Qabdahar ayaa cabashada shacabka xoojiyey, sheegayna in ardayda iyo macallimiinta jaamacadduba baahi weyn u qabaan garoonka diyaaradaha Qabdahar, codsadayna in loo furo garoonka. laba dhinac marka laga eego yani gobolada ku xidhan ee magaalada Qabdahar markaad eegto iyo dhinaca labaad markaad ka eegto annagoo federal institution tirada ardayda ee nagu jirta intay dhan tahay iyo socdaalkaygu sidoo ugu badan yahay tusaale ahaan caasimadaha ama Jigjiga ama Dirdhabe ama Addis Ababa iyo wixii kasii koreeya. annaga hadda tusaale ahaan ardayda ku xareysan ee hadda waqtigan xaaliga waa 1720 arday baa ku jira. bil gudaheedna waxaan rajaynaynaa inay soo xaroodaan 2500 arday. intaas oo dhan waxay ka kala imanaysaa dalkeena oo dhan. Itoobiya ka imaanayaan, qaar baa Amara ka imaanayaan, Tigray bay ka imaanayaan, Suudaan bay ka imaanayaan, shucuubta koonfureed oo dhan bay ka imaanayaan, meel walbo airport ay ka imaanayaan. marka ismilihii waxay u xidhmi karaysaa oo kaliya airport laan. dhanka kale xukuumadda ka arrimisa deegaanka oo wax laga weydiiyey xiriga garoonka Qabdahar ayaa ku gaabsatay in shacab yaraan oo kaliya loo joojiyey, taasoo ay shacabku beeniyeen. garoonkan waxaa la dhisay 2016 waxaana dhisay xukuumaddii hore ee deegaanka oo ku dhistay dakhligii deegaanka, waxaana dhismihiisa fuliyey injineero u dhashay deegaanka, iyadoo shirkadaha dhismaha wax ka fuliyeyna ay ahaayeen kuwa Soomaaliyeed oo looga faa'iideeyey. miisaaniyadda lagu dhisayna waxay gaaraysay 20 milyan oo dollar, waxaana xaqiijiyey oo qalinka ku dugay kadib markii la dhammaystiray shirkadda duulimaadyada hawada ee Ethiopian Airlines una aqoonsatay inuu yahay international airport. xaqiiqada ayaa waxay tahay inuu garoonkaas muddo 3 sano gaaraysa uu xidhan yahay kaliya inay xukuumaddii hore dhistay. haddaba kastokow baahida ay shacabka Qabdahar u qabaan adeega garoonka waxaa ka badan baahida ay u qabaan kumanaan arday ah oo wax ka barata jaamacadda, kuwaasoo ka kala yimaada bartamaha iyo cirifyada dalka Itoobiya, macallimiinta jaamacadda iyo shaqaalaha intaba. waxaana xusid mudan inaysan jaamacadda Qabdahar iyo shacabka magaalada oo kaliya baahi u qabin garoonka ee ay baahi baahsan u qabaan shacabka gobolka Quraxay, midka gobolka Doolo, dhammaan shacabka degmooyinka labadan gobol iyo gaar ahaan shaqaalaha ceelasha shidaalka ee Kaaluub iyo Elele ee ka kala yimaada dacallada dunida iyo gudaha Itoobiya intaba. haddaba shacabka magaalada Qabdahar iyo maamulka jaamacaddu waxay codsanayaan in garoonkan si degdeg ah loogu furo, haddii kale uu u xidhan yahay sababo kale. ciidamada jimcadda TPLF ayaa sheegay inay dagaalo ay ku qaadeen fariisimo ciidan oo tiro badan oo aad u waaweyn oo ciidamada militariga ee Abiy maamulo ku lahaayeen Adigrat, Wuqro iyo Agula.
halkaasoo dhammaan fadhiismooyinkii ay ka qabsadeen hubkiina ka furteen ciidamadiina ka dhigeen waxay dambaska ku daraan waxay qabteen iyo wax lugta furta oo jahaal-aan carara sida ay qortay jariirada afka dheer ee Bloomberg ee Ingiriiska laga leeyahay. Adigrat iyo Wuqro labaduba waa goobo istaraatiiji ah oo haddii ay ciidamada TPLF qabsadeen u suurtagelinaysa inay Maqale si dhib yar ku qabtaan maadaama ay Adigrat marin u tahay Maqale una jirto 45 kilomitir oo kaliya sida ay Bloomberg qortay iyadoo ka soo xiganaysa shakhsiyaad ajnabi ah oo shaqaale u ah hay'adaha dadbixiyaasha ah ee ku sugan aagaas. Waxay u sheegeen Bloomberg inay dagaalo culus 4 bari ee u dambeysay ka socdeen aagagaasi arkeenna ciidamada militariga Abiy oo baxsanaya iyo kuwa Tigreega oo lug ku soo galay Adigrat. Waxaan maqlaynay madaafiic culus oo la isu adeegsanayo iyo sarreyn saacado yar ka soo wareegtay oo kadibna magaalada aan ku aragnay xoogagga TPLF oo magaalada gaaf wareegaya kadibna gudaha ayayba soo galeen. Sidaas waxaa yidhi mid ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ee dadgaarsiinta Tigreega u jooga aagaas oo magaciisa qariyay. Wuxuuna intaas ku daray inay xoogagga Tigreegu la wareegeen soona ceshadeen magaalooyin waaweyn oo ilaa xuduudda ku siman oo horay looga haystay. dhanka kale jariirada Bloomberg oo soo xigatay waraysi uu khadka taleefanka satellite-ka ee Trayaha loo yaqaan uu ku bixiyay afhayaanka TPLF ayaa qortay inuu afhayaanku sheegay inay dagaalo culus ku qaadeen fadhiisimo xasaasi ah oo aad u adkaa oo ay kadibna kala wareegeen militariga Itoobiya. Dagaalkuna weli socdo siina socon doono ilaa ay Maqale ka qabanayaan iyo in magaalooyin badan cadowgoodu ka cararay. Xogo dheeraad ah ayaa sheegaya in ciidamada TPLF xalay ku hareereysnaayeen magaalada Maqale meelo ka midana ay madaafiic culus ku garaaceen. Sidoo kale waxay ciidamada TPLF soo bandhigeen maalinkii shalay ahayd maxaabiis dagaal oo ay sheegeen inay tiradoodu 1500 kor dhaafayso kuwaas oo ay ku qabteen dagaaladii maalmahan socday iyagoo ciidanka TPLF codsaday in caalamku maxaabiistan gurmad cunno oo degdeg ah la soo gaadho. ugu dambeyn hay'adaha dadbixiyaasha ee ku sugnaa deegaanka Tigreega ayaa sheegay inay dad gaarsiiyeen goobo militariga Itoobiya uu horay uga xanibay oo booqashada iyo raashin gaarsiinta ka caaganaa oo ay hadda u tallaabeen. ciidamada TPLFna ay ogolaadeen in deeqo raashin iyo cunno la gaarsiiyo.